waxa weeyaan 12 abriil waxaanu joognaa daalo waliba waxaanu joognaa qaybtii ay shaqaalu deganaayeen iyo eeriyadeedii saakana waxaanu soo maray in badan oo daalo ka mid ah kadib markii ay soo baxeen hadallo karinka yeedhay oo la leeyahay daalo wuu baaba'ay oo way baaba'day meeshana way ka baxday eeriyadeeda dalxiiskuna way baaba'day sidaasuu hadalku u yidhi eeriyadeeda dalxiisku dee waa wixii waatan aynu joognaa oo way muuqataa Soomaalidu waxay tiraahdaa war indhaa dhaama waa la daawanayaa daalo hadduu baaba'ay iyo hadduusan baabin waxaan leenahay hadduu baaba' jiro oo ay cid wax yeeshay cid kuma soo duulin oo meel ugama imane waa deriska qolada hadlaysa cid ugu dhow oo goobsho shaqaalena ka mid ah deegaanna ka mid ah tuulana ka mid oo iyaga ugu dhow balse halkaa waxaa ka yiri aan midaysanaynay hadallada waxa ku jiray waanu gogoosanaynaa daalo waanu gogoynaynaa beeraanu ka dhiganaynaa daalo lama gogoynayo beerana lagama dhigayo daalo waa forest land Somaliland oo dhan baale reer malaha qoysna malaha tuulona malaha cidli ma jirto horaa looga tashaday dalkii iyo seerayaashii iyo bilicdii waa meelahan oo kale baa ka haray oo qura waxa weeye waxaan leenahay cid u soo marmarsoon karta oo iman karta oo odhan karta waanu gogoosanaynaa waxbaanu ka qabanaynaa ama sidaanu ka yeelinaa laga yeeli maayo intaanu noolahay ee ciidda korkeeda saarnay lagama yeelayo haddaan anigu isu duwe ahaa oo aan maanta aan saaxiibkay loo dhiibay xaq waxaan u leeyahay meesha jeclayga hayso inaan ilaaliyo oo wax walba ka ilaaliyo raggan inala jooga imika hareerahayna taagan waa raggii iyagu ii soo qayliyey ee meesha la yidhaahdo dacaar iyo dul waraabe dacaar iyo baasha la yidhaahdo maxay ahayd kurberde iyo beerihii laga samaystay daalaha dhinaca waa kuwii gacmahooda ku gubay aanu wada gubaynay xoolahooda ku bixiyey masruufkooda anagu masruufayay ayaamii aanu joognay aanu meesha la yidhaahdo degbana guddi ka soo samaynay afshalena guddi ka samaynay guddidii afshalo waa taa daalahanay yaaliin dhinaciisa koonaa ka yaaliin ama dhexdaba ka yaaliin qaybtood sida reerahan aynu soo marray oo kale waa dadka aanu kaga maqanahay hawsha ee noo soo sheega marka ay wax yari isbedelaan ama wax yari yimaadaan hadal way jirtaa gawaaridu inay dee xaaba marka qaadan jirtay haddeer kuwa ciidanku ka qaataan haddeerna gawaarida meesha dahabka ka timaada inay togagan xeebaha xiga xaaba ka soo qaateen oo tabcan la soo mareen oo karin la yimaadeen waa jirta gaari xaaba sida oo xaabadu tahay xaaba weliba daad xoor waa la yaqaan xaabada ta la garaacay iyo ta geed qoyan ka timi iyo ta daad xoorta ee dhulka laga ururiyay waa la kala yaqaan xaabada daad xoor tahay haddeer xafiiskaygii taallaa oo gaarigii taagin waanu soo duubnay cid walba waanu tusaynaa way taallaa marka in xaalad abuur laga sameeyo oo lagu dayo waxaan meesha ku jirin looma baahna waxaan leenahay dalku waa dalkeennii inamada hadlayna waa inamadayadii kuwan la eedeynayay laleeyahay waxbay qaban waayeen waa inamadayadii kuwan waxqabadkoodu waa muuqda Soomaalidu waxay tiraa war indhaa dhaama waa la arkaa waxaan leenahay wuxuu yidhi hawlka badaali weli waa hogadii meel la yidhi meeshaas ama dawlad baale ama dadweynaale cid weliba waa u soo hunguroonaysaa haddaba cid walba waxa weeyaan gacbo biraanu kaga haynaa cid degi karta oo maguuraan ka samaysan kartaan jirin cid googoosan kartaan jirin cid wax kale ka samayn kartaan jirin maandaan yeelayno baan idin dhihin intaanu ciidda korkeeda saaranahay taa ninuuna ha ku harraadin hana ku handaadin waan leenaho waan googoosanaynaa malihidin waxa weeyaan waa bilicdii Somaliland meeshu Somaliland oo dhan baale shaqaalana way keensatay waa u jooga dadka ku xeeran ee meesha joogana waa Somaliland kuwan le waan googoosanaynaa waa shaqaale Somaliland marka ninkii ka hor imanaya dawladda isagaa sheegi doona laakiin waxaan leenahay war nin walba shaqadaada iyo hawshaada ku ekow nin walba shaqadaada iyo hawshaada walaalayaal ku ekaada waxaanana aan wada ilaashano waa wada leenahay way naga wada dhaxayaan hawluhu waxa weeyaan siday intii ceeljiray bay jidkii waayil baa layidhi intii ceeljiray jidkii waayil ilaa iyo maalintii gobonnimada qaadatay Somaliland 60kii waa joogay anigu daalan joog hadhow bay odhanayaan waa nin weyn oo hawlgaba kuwiiga waaweynaa aniga idhal kariyay baa jooga halkan waa meesha la yidhi
dadku kuma gaboobo nimankii daruwiishkii kula jiray dagaalkoo birta weli doob la moodaa birta daabka haystoo gala duulimaadkii halkan waa meesha nooca u taalla ee nooca ilaa iyo 40 heesood iyo ilaa 60 gabay baa ku soo arooray daalo waa meesha bilicda iyo quruxda miidhana waa meel bilicdeedu Soomaaliland ku filan tahay waa meel in la ilaaliyo mudan meel loo goolaaftamo leeyahay oo gogosanayna maaha lamana yeelayo lamana gogoynayo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh